hayga dhimanka erida horteed naftadaan odhan waxaad kala socotaa saaxiib furiinka Najma Nashaad iyo waliba arooskeeda cusub ee ku soo beegmay waqtigan xasaasiga arintan ayaa noqotay mid aad baraha bulshada looga hadlayo balse saaxiib ma dhabba mise dhab ma ahan taas ayaan caawa ku falanqeynaynaa mawduuceena balse saaxiib waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka guda gelin inaad videoga like saarto sina share gareyso barteena YouTube-ka Cabdalla Deeqsan aad subscribe soo dhahdo waayo walaal waxay noo tahay muuqaalka inaad like saarto dhiirigelin iyo dardargelin aan ku sii helayno amba helno taageero aad badan sidoo kale amba adigoo sidoo kale u wanaagsan sidoo kalena shaartuna waxay gaarsiinaysaa dad badan oo Soomaaliyeed meel kasta oo dunida iyo daafaca caalamka ka joogan saaxiib subscribe-tuna waa shuruudin laga rabo mid kamid ah buuxinay amba hadafyada aan lahayn inaan ka gaarno insha Allah mid kamid ah saaxiib waxaan ku haynaa arrin dhameystiran oo ka hadlaysa in Najma Nashaad guursatay kadibna ay magaalada Hargeysa ku gashay aroos cusub markay kala tageen ninkeedii hore saygeeda hore ee Najma Nashaad ay muddo badan wada joogeen ambase ahaa xaaskiisii kaas ay kala tageen arrintan ayaa soo baxaysay muddooyinka ugu dambeeyay iyadoo marna la sheegi jiray inay guursanayso Cabdikariin Cali Shaah markii kalena waxa la sheegi jiray inay guursanayso dad badan oo kala nooca ay la socoto Najma Nashaad waxa ay haystaa hal canug waxayna ku nooshahay magaalada Hargeysa inkastoo ay tahay gabadh ka soo jeeda bariga Soomaaliland haddana waxay waqti dambe ku qaadatay waqtigeeda amba ay ku nooleed magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland taasi oo iyadii saygeedu ay ku noolaan balse saygeeda inta badan ma soo bandhigto waxay soo bandhigtaa sibirti in bedelkeeda inama kale oo Soomaaliyeed oo sawir la gashay iyadoo haysato dhexda iyadoo iskala fadhida meel Najma Nashaad inkastoo ay tahay gabadh fanaanaduna aysan xad in hadeeya oo u diiday wiilasha kale aysan jirin walow ay diinta islaamka ay xadidayso inaad wiil kale oo aanu ku qabin aad iskala gasho meel cidla ama iskala fadhiisato balse taas bedelkeeda Najma iyo fanaaniin badan oo iyada la mid ah oo ay ka mid tahay Ubad Aragsan oo kale ma soo bandhigaan odayaashooda soo kala Xamda Bilan ma soo bandhigaan midkoodna balse Najma Nashaad waxaa la arkayaa mararka qaar dhif iyo naadir ah isagii oo la taagan amba isagoo abaalmarin yar oo la siiyay la gudoomaya taasna waxaa loo arkaa inay tahay inuusan isagu ku jirin fanka gurigana uu joogo sida dad badan oo Soomaali ah oo aan halkan ku soo koobi karin oo sayidada soo bandhiga aan soo bandhigin hadrade sidoo kale waxaa jira YouTubero aba fanaaniin Soomaaliyeed oo caan ah haddana aan san la ogeyn dumarkooda wali hadan meesha ay ku sugan yihiin ama sacid ay yihiin ama xaq ay joogaan xataa taasna waxa ay keentay in qofkan isagu kaliya fanka ku egyahay balse ay xaaskiisa amba ay dhowrsan tahay amba saygeeda oo kale uusan baraha bulshada uusan aad u danin balse niyan hadalku daalin saaxiibe waxa jira inuu amba soo shacbaxay inuu iskala tagayaan Najma iyo ninkeeda taasna waxa ay keentay inay Najma Nashaad lagu ceeday Cabdikariin Cali Shaah guursanayso markii ay kala hadheen bay ilaahay saygeedii hore saygeeda waa kan sawirka ku arkaysaan amba muuqaalkaad ku arki doontaan in taasna waxa ay dadku asadaaleen Soomaalidu carabkeedu wuxuu leeyahay dhow amba waxyaalo aan dhaado hadii qofka Soomaaliga ah wax sheego waxay noqonaysaa inuu waxaas soo inta badan dhawo in marka laga reebo waqti yar wax yar oo dib iyo naadir ah Soomaalidu waxay sheegtaa oo ay dhawoobaan balse waxa maalmahan soo shacbaxaysa oo aad baraha bulshada qabsanaysa inuu kala tageen ay xaflad aroos ku dhigatay Hargeysa taas oo arooskiisana ay mid Soomaalida kamid ah aba in fanaaniinta dhahda kamid ah ay nolosha la wadaagi doonto balse saaxiib ma oran karno hebel anaga sababtoo ah in video hore ka sameeyay ay dad badan falcelin ka sameeyeen sadartid ma oran karno waxa sameeyay Cabdikariin Cali Shaah waan hebel kale balse wax kasta waraabihii waxa la weydiiyay waraab ayaa la weydiiyay waraab bishii ayaa soo baxday yaal isagoo in laga rabo in wax laga qaato markaas ayuu yiri intuu iska socday buu yiri hortida iman doonta macnaha cadeedan arki doonaa balse in waxba ka hor dhicmayna saaxiibe waxaan arki doonaa qofka guursaday isagoo cad iyo xafladiisa arooska ee tooska aan si fiican arki doonaa insha Allah taasna waxay cadin u noqon doontaa inuu guursatay nin iyo in kale Najma oo ahayd gabadh aad baraha bulshada lagu yaqaan qayb ahaan gaar ahaan qaybta fanka Najma anigu ahaantay waan taageeraa marka waliba heesayda qaarkood loo eego sayasti ugu dambeysay ay soo qaaday oo jirtay arkimays in kalsoonida ambatiyo aminkayga taasoo dadku ay u macnaayeen ninkeeda wala jeedo balse saaxiib adiga maxay kula tahay markaad muuqaalkan dhameystirato commentiga noogu reeb aragtida
saaxiib sidaas soo daawateenba xafladda arooskeeda ayaa tan lagu macneeyey in iyada oo kamisom ubaxna sidatay sidoo kalena xirnay taajka arooska taasna waxay dadku u arkeen amba ay ku faaleeyeen amba ay ku faaqdeen baan idhaahdee inay tahay xafladda arooskeeda sidoo kale waxaa jira su-aalo iyada laga weydiiyey saygeeda iyo waxyaalaha ay ka mid yihiin inay tahay single iyo in kale taasna waxaan idinku haynaa muuqaalkan isla gudihiisa waxaan idiin soo bandhigi doonaa isagoo faahfaahsan saaxiibayaal balse haddaad caqli leedahay adigaagan Najma Nashaad degan lahayd aroos noocan oo kale ah mase tahay inay dadka Soomaalidu waxay been abuurayaan wax aan waxba ka jirin taasna waxay noqonaysaa inay cadeyn buuxda u tahay inay Najma guursatay nin kale misana ay kala tageen saygeedii hore ee ahay nolosha ku midisnaayeen kaasi oo xataa ay u dhashay canugan sawirka aad ku aragteen Najma Nashaad waa gabadh inta badan aanan ka haysa dhigin inay si ahaato gabar yar oo jeelan amba in qurux badan tulowtaas anigu laftarkayga aan ku taageersanahay sababtoo dumarka Soomaalida yaan wada cambaarin laakiin qaarkood marka ay guursadaan ay muddo yar joogaan ayay gebigoba waxay isku sidaayaan inaynan diim waxba aysan gelin muddo yar ka bacdina ninka waxaa lagu yiraahdaa war saaxiib mahooyada ayaa kula socota mise waa qof kale oo aad family tihiin ama qaraabo tihiin oo ka weyn markaasna taasna dhib iyo keentaa balse saaxiib muuqaalka waxa qalbi igu siiyay qofka koowaad waa inaan kayga aabihii marka labaadna waa asxaabtayda Najma ma ii sharaxi kartaa waxaad ula jeedo inankayga aabihii saxaafow waa ku maqluuba su'aashaas ka gambiya saaxiib ma ka qashaafi lahayd gabadhi saygeeda xalaashaahay qaba waa maya taas adigu caqligaaga marka aad kaashato adiga oonan cid kale su-aal weydiinaynin maxay kula tahay arrintan maxaad kaga jawaabi lahayd waayo waxaa la weydiiyey inankayga aabihiis maxaad ula jeedaa waa ina ka jawaabooda waxay ka gambiya arrintaas inankayga aabihiis laftarkiisa waxay u dhigan tahay macnaha inankayga odaygii ii dhalay berigii in khayr allaha siiye taasna waa arrin kale oo caddeyn u ah inay kala tegeen Najma Nashaad iyo ninkeeda oo hay waqti isqabeen saaxiib dhageyso ay gudagalin arusinka saaxiib wad daawateen waanaad dhageysateen dhammaan muuqaaladii aan soo gelinay barteena YouTube-ka ee khaaska balse saaxiib maxay kula tahay inay ku kala tageen Najma iyo saygeeda Cawaaladeyr iyo Najma waqti badan ayay nolosha ku mideysnaayeen waliba waxay isku dhaleen awlaad taasi oo ay ku dhalatay meher ha ismeersadeen kadib ama ay wada deganaayeen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland balse ugu dambeyn waxa soo shacbaxay inay kala tageen Najma iyo saygeeda Cawaaladeyr kuwaasi oo ahaa lamaanin marka qaar aad loo xushmeyn jiray marka ay joogto masraxyada fankan ay amaana jirtay saygeeda way odhan jirtay Allahayda iyo saygeyga Cawaaladeyr waa qofka kaliya ahaatee wax iga dhigay amba dunida ii jooga maanta ugu dambeyntii waxa la sheegay inay ku kala tageen markay Najma Nashaad siin weyday wax ixtiraamaho aad far badan Cawaaladeyr taasina hay keentay inuu isaguna yiraahdo ma hayo qof ixtiraamaye waa inay magaalada aan kala galnaa sababtoo waxa lagu wada joogo saaxiib guurku wuxuu ku dhisan yahay ixtiraam iyo safkarad balse haddii labada qof mid ka mid ah ixtiraamku ka suulo waxa ay noqonaysaa inuu midka kalena isagana ka suulo oo wax dulqaad yeelan waayo saaxiib markaas waxa ka bacdi waxa uu sameeyay warqadeeda ayuu furiinka ay u soo dadajiyay Najma Nashaad oo arrinta iyaduna ku faraxsan oo sidaan hore u soo sheegnay jacayl inay gabadh iska haato waqti badan ayna sida u sii jiljilnaato maadaama ay hal cunugna haysato fankana ay heer ka gaadhay ayaa warqadii kadaalka hore ka sii qaadatay balse sidoo kale waxaa la sii sheegayaa inuu uga shakiyay fanaaniinta badan ee la socoto amba ay saaxiibka la tahay Najma Nashaad kuwaasi oo kamid ah fanaaniin badan oo Soomaaliyeed oo magaceeda ku soo shaaci karin balse hadda oran meena waa Cabdikariin iyo waa Hebele fanaan kamid ah fanaaniinta ayay ugu dambeyntii meherkooda hay qorsheeyeen waxayna xafladii ugu horeysay kamiisanka ku dhigteen hotel Karom ee magaalada Hargeysa taasna waa arrin cad oo idin soo ogaanay saaxiibayaal xaqiiqana waan idin haynay oo waxaan idin soo bandhignay inay kala tageen mar horeba ay iyaduna sheegtay saygeedii hore ay ninkeeda aabaheed taasina waa cadeyn buuxda oo u baahan wax cadeyna balse saaxiib waxaan dhamayso muuqaalka comment-kana noogu aragtidaada muuqaalkana saaxiib leegsaar sina share garee soo kala barteena YouTube-ka Cabdulla Xuseen Cabdulla Deeqsina subscribe ku samee waa Cabdulla Deeqsi magacayga ayaa ah Cabdulla Xuseen Facebook page-keena waxa ku qoran saaxiib Cabdulla Xuseen isagana follow garee leegna saar waanad ku mahadsantahay daawashada muuqaalka saaxiib